بسم الله الرحمن الرحيم saaka halkan waxaan doonayaa inaan kaga in yaroo faallaa ka idhaahdo adna aadan ismaaciil iyo buuggay xalayta soo bandhigtay ee magaciisa la yidhaahdo women of firsts xalay umaan helin fursad aan kaga hadlo buuggaasi iyo adna nafteedaba adna in fara badan baa laga hadlay taariikhdeedii wadir baa la sheegay ilaa dhowr iyo 10 qof baa aad uga hadlay marka taariikhdeeda adna waa la hayaa ku noqon maayo waxaan ka hadlayaa buuggan ay qortay maan akhriin buugga sida runta ah weli maan akhriin markaan waan akhriin doonaa insha Allah waxaan si ogahay buuggan macluumaadka ku yaala inay yihiin waxaas dadka Soomaaliland ay ka dhaxli doonaan gabadhaasi adna aadan la yiraahdo oo ah gabadh ka duwan wadankan wax badan u qabatay gabadh wadankan wax fara badan u qabatay oo siday wax ugu qabatay iyo siday u jeceshahay qof la midahi aanu jirin rag iyo dumar marka la isku daro waxaan ku goobaabin lahaa dadka inay buugga akhriyaan dhaxalkay wadanka uga tagtay waa buuggan wanaagii iyo taariikhdii laga sheegay oo idili halkan ay ku xusan yihiin waxay noqonaysaa in facya dadka soo socda ummadda Soomaaliland caruurta iminka iskuulada dhigata iyo faca dambeeya taariikh ay u dhigtay oo ay kaga daydaan iyo buugani noqonaya marka dhaxalkaasi adna aadan uga tagtay ummadeeda in aan meel la dhigin la akhriyo iyo loo baahan yahay waxaan ogahay in aan ku wanaagsaneyn akhriska buugga waynu qaadnaa meel baa la iska dhigaa qofkii doonaya in uu wadada adna maro oo kale oo nolosheeda oo kale ay taabato saameyn ay ku samayso waa in uu akhriyo buuggan xalay waxaan arkayay caruur yar yar oo u maleynayo inay dibadaha ka yimaadeen gabdho yar yar oo 10 jir ilaa 12 jir ah oo buuggan waalidkoodu iibinayo waan hubaa kuwaas inay akhri doonaan oo ku dayan doonaan wadada adna aadan raaci doonaan kuwana waaweyn ama dadka mudakarka ah waxaan kula talin lahaa in iyaguna ay akhriyaan caruurtoodana ay ku barbaariyaan oo ay kula ballamaan inay buuggan akhriyaan sideedabana waxaan u soo jeedin lahaa ummadda Soomaaliland ardaydeeda aqoon-yahankeeda cid walba in dhaqankeena lagu daro wax akhriska wax akhrisku waa waxa ugu horeeya ee bani aadamka u kasba ama siiya ama aadmigu ku gaaro horumarka xagga maskaxda waxaan filayaa oo rajaynayaa in buuggan uu noqdo mid bedela sidaynu ka haysano wax akhriska iyo inuu noqdo mid facyada soo socda jiilka soo socda caruurta soo socota wax u tara inteena noolina aynu ku akhrino oo si wanaagsan aynu akhrino oo aynu fahamno wadada adni u martay guusha ay ka gaadhay in wadankeeda wax u qabato adna waxaan ku amaanayaa wadan jacayl aan xad lahayn in waxaan oo dhan ay u samaysay waxbay baratay halgan dheer bay soo martay waxay noqotay qof adduunyada idil laga yaqaano waxaasoo idilna waxay gundhig ugu dambaysiisay oo maanta meel walba ka muuqda wixii Soomaaliland ay qabatay oo ah isbitaalkaasi iyo tababaro fara badan oo ay siiso inta ugu jilicsan dadkii wax u qaban lahaa waxa ugu jilicsan hooyadu markay umulayso waxay adni tababartaa ummadii ama dadkii aan umulisada iyo hooyada iyo ilmaheeda ka shaqeyn lahaa iyo tababartaa isbitaal dhan bay u dhistay iyada isu xil saartay tiyo hadii mucaawano ay ku heshayna waxa meel kale ay ka heshay ay yar yihiin iyada xooggeeda gelisay oo tamarteeda gelisay oo nolosheeda idin isbitaalka gelisay waxaan leeyahay adna inta doonaysa inay ku dayato aniga wuxuu yahay saan u hadlayaa ama dareenka aan halkan ka muujinaya in lagu daydo adna qofkii doonaya wadadeeda inuu guusha gaadho inuu buuggan akhriyo intaas aan ku soo koobi lahaa. Assalaamu calaykum.